maalinta qiyaame marka dadku banka isugu soo baxo ayaa adiga ceeb gaari ku saarantay ala ruusi lashad baa lagu soo taagaya wixii aad xaday iyadoo tuurta ku sido oo ay waliba qaylinayaan oo dadkoo dhami ku arkayo ku maqlayaan ayaa lagu soo taagaya inta qiyaamaha banku dadku taagan yahay la xisaabayo de konton sanadood meelahaas la taagnaada qiyaamaha intaasoo dhan tuurtaad ku sidaysa khalqiga ilaahay oo dhamina waa ku arkaya hadhowna naartiba ku dambaysa saadaradeed buu nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wassalaam ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamay wama kana linabiyyin an yaghul waman yaghlul ya'ti bima qalla yawm alqiyamah ba ilaahay ya'ti bima ghall wuxuu la imanaya wixii uu khiyaamayay maalinta qiyaame banka isagoo taagan oo tuurta ku sida saadaradeed ba xadiiska saxiixaynka ku soo arooray wuxuu nabigu leeyahay alayhi salaatu wassalaam intu tuuganimada xoolaa dadka dhaxaysa ka waramay oo aad u weyneeyay oo uu tilmaamay dembigeedu intuu leegayay ayuu dabeetana wuxuu nabigu yidhi laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa war hooy akhrayaan idan arkin maalinta qiyaame adigoo tuurta ku sita neef geel ayaan ku arkin buu nabigu leeyahay neefka geeloo reemaya ama dee cod samaynaya neef geela oo dhawaaqaya adigoo tuurta ku sita yaan idan arkin buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam neef geeloo ololaya adoo tuurta ku sida ayaan ku arkin oo leh yaa rasuul allahi aghithni ilaahay rasuulkiisiiyo ii gargaar leh faaqulu laa amliku laka shay'a qad ablaqtuk nabigeena xariista badnaa ee aakhiro shafaacadiisu tirada badan tahay ayaa ku odhan doona maanta haddaad waxa kan xaday war hooyaan idan arkin buu yidhi idinkoo neef geela tuurta kaa saaran yahay oo neefku qaylinayo oo aad leedahay rasuul allow ii gargaar oo annaan ku odhan doono laa amliku laka shay-an qad ballaqtuka waxba maanta kuuma hanto waa ku soo gaadhsiiyey aan leeyahay buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wassalaam waxba yowma laa yughni mawlan can mawlan shay-a ilaahay wuxuu leeyahay waa maalinta aan cidina cid wax ka taraynin nebi maxamed oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay rasuul naxariis badan inuu yahay laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim nabigaa ilaahay uu ku sifaynaya inuu naxariista badnaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa maanta odhan doona waan anigu waxba ku tari kari maayo anigu anigii ku soo gaadhsiiyey markaad dunida joogtay waxa uu nabigu tilmaamay haddana kuma dayninkaase laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaamati calaa raqabatihi farasun lahu xamxama waryaan midkiin arkin tuurta faras ku sida faras dhan baa tuurta ku sita neef geela tuurta ku sita neefkoo lahu xamxama waa codka sahiilka ka yar bay idhaahdaan adigu isna reemaya dheh faras dhawaaqaya adoo tuurta ku sita oo leh ilaahay rasuulkiisiiyo ii gargaar waan ku odhan doona buu nabigu yidhi maanta laa amliku laka shay-an adna waxba kuuma hayo qad ablaqtuk waan ku soo gaadhsiiyey markaasuu haddana nabigu leeyay laa ulfiyanna axadakum yajii'u yowma alqiyaama calaa raqabatihi shaatun lahaa hugaa'un war la xiyaysa adoo tuurta ku sitan yaan qiyaamaha ku arkin buu nabigu leeyay oo le ii gargaar waan odhan doono waxba kuuma hanto waanigii ku soo gaadhsiiyey war qiyaama ayaan idan arkin buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam adigoo tuurta ku sida nafsun laha siyaax addoon ama addoomad qof bini aadam adoo tuurta ku sida oo le ii gargaaro aan leeyahay war kuuma gargaari karo waan ku leeyahay war waan ku soo gaadhsiiyey yaan arkin buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam adoo tuurta ku sita riqaacun takhfiqu sida dadka la rabo maantan uu ilaahay u tilmaamaya in loo ceebeeyo mid calala dusha ku sita baa la yidhi laakiin maradu miyay aamusantay may nabigu wuxuu leeyahay takhfiqu sida calankay baboonaysaa way sanqaraysaa si dadku ku arko
adigoo maryo tuurta ku sita maryuhu si ay babbanayaan oo dhawaaqayaan yaan ku arkin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo le ilaahay rasuulkiisiiyow ii gargaar aan ku odhan doono waar anugu laa amliku laka shay-an waxba kuuma hanto waa ku gaadhsiiyey warkii waan ku soo gaadhsiiyey waryaan arkin buu nebigu leeyahay idinkoo ta'aamusaray tuurtiinna saarantay waa fidada iyo dahabka bay culammadu yidhaha lacagta calaa kulli xaal xadiidkani waxa uu tilmaamayaa maalinta qiyaame qofkii mujaahidka soo noqday hadduu xado xoolihii dadka ka dhaxeeyey dee kaan mujaahidka hayna markaa maxaad u malaynaysaa hadduu xado xoolihii dadka ka dhaxeeyey qiyaamaha isagoo tuurta ku sida inuu isa soo taagi doono oo weliba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu odhan doono anugu waxba kuuma haya adiga ha kaa dulcido ha ku dul saarraato waa khizyi maalintaasi waa amaama shuhuud amaama dadka hortooda lagugu ceebaynaya naartiina waa kuu dambaysaa naartiina waa dambaysaa sida daraaddeed axaadiista baabkan qaar ka mid ah imaamu muslim wuxuu ku soo arooriyey fii baabi alimaara imaam albukhaariyina wuxuu ku soo arooriyey maxay fii baabi alsiyari fii baabi aljihaadi wasiyar maxay tilmaamaysaa imaamu muslim wuxuu baabulimaara ugu soo arooriyey bay leeyihin wuxuu u degayey bay leeyihin dadka madaxda ah iyadoo axaadiistan ay jihaad ku soo aroortay ayuu imaamu muslim wuxuu ku soo saaray kitaab alimaara buu ku soo saaray si uu u tilmaamo madaxdu inay tahay si awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam khawla alansaariya baa waxay leedahay waxaan maqlay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh ina rijaalan yatakhawaduuna fii maali illahi bigayri xaq falahum annaaru yowma alqiyaama rag baa dunida markay joogaan maalka ummadda xoolaha ilaahay iska dhumban doona buu nebigu leeyahy waar naar bay kuwaasi leeyihin buu nebigu leeyahy maalinta qiyaame imaam albukhaariyi wuxuu kaloo soo saaray can cabdillaahi bni camrin qaala kana calaa thaqli الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam rajulu yuqaalu lahu kirkira nin kirkira la yidhaahdo ayaa alaabtii nebiga siday buu yidhi dabeetana wuu dhintay markaasuu nebigu wuxuu yidhi huwa fi nnaar kirkira naar buu gelayaa markaasaa la baadhay buu yidhi dabeetana waxaa laga soo helay mara yarow xaday culammada muslimiintii waxay idhaahdaan guluulku tuugadaasi xoolaha dadweynaha la xadaa waxa ay leedahay noocyo tiro badan bay idhaahdeen koo waxa ugu horraysa taa aynu soo sheegnay ee fayg iyo khaniimada wixii laga xadaa ou nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa hore ku tilmaamayey kalaa inii ra'aytuhu fi nnaari fii burda ghallaha wa cabaa'ah waxaa kaloo ka mida bay yidhaahdeen dadka sakada soo ururinaya hadday wax ka qaataan oo ka xadaan nin la yidhaahdo abi mascuud alansaariy ayaa wuxuu yidhi nebigaa ii diray calayhi salaatu wasalaam asaaciya inaan sakada soo guraa la ii diray dabeetana wuxuu igu yidhi inطaliq abaa mascuudin walaa ulfiyannaka yowma alqiyaamati tajii'u wacalaa dahrika baciirun min ibli sadaqa lahu rugaa'un qad halaltahu waarod xoolaha sakada soo ururi buu ugu yidhi oo hooy imikaba waa markuu dirayuu nebi maxamed la hadlayaa xoolahaa soo ururiyo qiyaamahan ayaan ku arkin buu yidhi adigoo tuurta ku sita neef geela oo aad sadaqada ka xadday yaan qiyaamahana ku arkin buu nebigu ku yidhi saxaabigii markaasuu yidhi idan laa antaliq dee hadda anugu xoolaba ururin maayo buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow nebiguna wuxuu yidhi idan laa ukriha kugu qasbi maayo saxaabi anigu wuxuu leeyahay mar haddii aakhiraba saa la ysugu qabsanayo anugu xoolaba shaqadayda maaha soo ururin maayo buu yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaa kugu qasbi maayo xadiidka abi daawuud baa soo saaray imaam alalbanina waa xasan buu leeyahay